moogtahay in ninkan uu yahay madaxweynaha ugu toogsan adduunka soo mara waxaana magaciisa lagu magacaaba Mobutu Seseko wuxuuna ahaa madaxweynihii hore dalka Congo waxaana lagu qiyaasaa lacagtu lunsaday 4 bilyan ilaa 15 bilyan moogtahay in xayawaankan yahay xayawaanka ugu nolosha gaaban dhammaan xayawaanada adduunka ku nool magaciisana waxaa la yiraahdaa mayfly wuxuuna noolaadaa oo kaliya 24 saacadood moogtahay in mulkiilaha Facebook ee Mark Zuckerberg uu qaatay digrigiisa koobaad kadib markuu noqday bilyaneer wuxuuna cadeeyay in shahaadada jaamacaddu aysan muhiim ahayn si aad u noqoto mid taajira ma ogtahay in saynisyahanadu ay dhaheen caanaha baranbaradu waxay 3 jibaar ka nafaqo badan yihiin caanaha lo'da ma ogtahay in madaxweyne Kim Jong Un uu dilay adeerkiis Rumaad wuxuuna ka saaray dharka wuxuuna ku dhex tuuray raxan ayo gaajaysan halkaas ayna ku cuneen ma ogtahay in gaadhigan ay ku xoontay shinni gaaraysa 20,000 oo shinniyood waxayna gaadhigan la socdeen muddo dhan 2 cisho sababtuna waxay ahayd waxa gaadhiga ku dhex jirtay boqoradoodii ma ogtahay in South Korea ay jiraan baarkina u gaara dumarka kuwaas oo ka weyn baarkinadeena caadiga waxaana lagu midabeeyay midabka binkiga ee dumarka ma ogtahay in markabkan yahay markabka ugu weyn ee qaada konteenarada waxaana magaciisa lagu magacaabaa Evergreen wuxuuna qaadi karaa 23,992 konteenar markiiba ma ogtahay in laga soo bilaabo sanadii 1986 dalka India waxay ahayd meesha kaliya diamond-ka laga heli jiray ama laga qodan jiray ma ogtahay in 97% warqadaha iyo buugaagta aynu isticmaalno maalin walba laga sameeyo qorigan idin muuqda kaas oo loo yaqaan magaciisa Bulb of Wood adaba daawade hadaa tahay ruux maskax badan ka shaqeey oo xali su'aashan jawaabteedana qaybta commentiga hoose iyagu sheeg hadaad garato waxa tahay ruux maskax badan runtii ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saarana aad subscribe dhahdo